gabadh ayaa ii timi 16 meelahaasa adigu 16 cimrigeedu muu gaadhin waxay u timi inay iiga waranto riyo ay ku aragtay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam marar aad u fara badan laakiinse taa ma aha ujeedadu uma jeedataa iminka waxaanse ku idhi inantaydiyay imise jeer ayaad aragtay nebiga waxay sheegtay marar fara badan waxaan dareemay xaqirnaan iyo inaan yarahay dabadeedna waxaan idhi imise jeer ayaad ku salidaa nebiga maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay tidhi sheekhow wallahi ilaahay fadligii waxaan ku saliyaa maalintii 10,000 oo jeer 10,000 oo jeer ilaah waan ku dhaartay gabadh yar oo aan 16 sano xitaa gaadhin marka ilaah man kugu dhaariyay miyayna xaq u lahayn inay aragto xabiibkeeda ay ku salinayso 10,000 oo jeer adiguna adoo muxaadarada jooga ayaad ku salinaysaa mar ama laba jeer mana lihid wirdi maalinla ah iyo jadwal aad raacdo ilaa man raxima allah waxaan idhi 10,000 oo jeer xaq baad u yeelatay inuu ku yimaado sallallahu alayhi wasallam qaar inagaynaga midabaa siyaarta qaar inagaynaga midana wuu soo siyaartaa kii ii arkaana si dhaba ayuu ii arkay sababtoo ah shaydaanku iskuma kay matalo sidaas u dhahay rasuulku taasina waa fadli iyo deeq ilaahay uu siiyo cidii uu doono waxaan tegay tuulada Shirbiin ee halkan ku taala arday kamid ah ardayda ma garanayo inuu halkan fadhiyo ayaa wuxuu yiri hooyadee baa igu tiri maxamed xasan waxaad ku dhahdaa waa inaad soo siyaarataa waxaan yiri xagadina geynaysaa wuxuu yiri halkan tuulada Shirbiin waa halkan masaajidka tawxiid ayaamihii daruusta arbacada ay socon jirtay gaadhigii baan fuulnay waan baxnay waanan tagnay waxaanan galay guri qadiimi ah oo dhoobo iyo leban ka samaysan guri danyar ah ma aha danyari oo kaliya waa guri aad uga liita xitaa guryaha dadka danta yar waxaanan la kulmay hooyo da'deedu 70 ay ka weyn tahay haddii aan 9 gaadhin aad u weyn laakiin waxa ay soo jiitay waxa weeye hooyada sharafta leh may joojinaynin ilbiriqsi ama ilbiriqsi wax ka yarba inay ku salideen nabiga sallallahu alayhi wasallam kelmad ayay kugu soo dhaweynaysaa waxayna ku mashquulaysaa salliga nabiga waaban yaabayba waxaanan arkay ugu yaraan arrin igu cusub dhowr daqiiqadood ayaan la joogay ayada iyo wiilkeedii ninna may lahayn wuu ka dhintay gabadhaasina ma joojinayso salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam subxaanallah waxaan ku idhi hooyo maxaad ka cabanaysaa ii sheeg waxaan kugu yeedhayaa dhakhtar ka mida walaalada oo toddobaadka soo socda kugu baadhaya halkan way qosashay waxayna tidhi wiilkaygow anigu cudurkayga iyo daawadeedaba waan aqaanaa cudurkayga iyo daawadeedaba waxaan idhi haye bal wax ii sheeg waxay tidhi 3 habeen maan arkin rasuulkii ilaah baan ku dhaartay waa sidaase 3 habeen markaas ayaa cudur igu dhacay kama cabanayo xanuun jidhka ah kuwaas walaalayaal maaha muuqaal iyo shakli arrinku ilaahay ma fiiriyo sawirkiina iyo midabkiina ee wuxuu fiiriyaa qalbigiina iyo camalkiina arrinku maaha muuqaalka ee wuxuu eegaa quluubtiina iyo camaladiina camalkeedu waa salaad dikri tasbiix quraan akhrin iyo salliga nabiga waa taa wirdigeeda iyo cibaadadeedu salaadaha faralka marka laga yimaado waxa ugu khayr badan salliga nabiga ilaah baa albaabka u furay hana yaraysanin arrinkeeda ha yaraysanin arrinkeeda adiguna haddaad dadaasho albaabka ilaahay wuu ku furay